kusoo dhawaada dhammaantiin fursad ganacsi oo ballaaran oo ka bannaan xeebta ugu dadka badan Soomaaliya ee Lido waxay ka mid tahay xeebaha Soomaaliya ugu dadka badan ee tirada ugu badan ee dadka yimaadaan waxaana looga baahan yahay doomo dalxiis oo sidaan oo kale ah. Sidaan ognahaba Lido waa mid ka mid ah goobaha ugu badan ee yimaadaan dhalinyarada, haweenka, caruurta, odayaasha iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada oo dhan. Sababtoo ah goobtan waa goob dalxiis oo inta badan dadku ay jawi ku qaataan. Waxaa ku yaala hoteelo waaweyn, maqaayado waaweyn, haddana ma leh runtii doomaha dalxiiska ee lagu talagalay qofku inuu waqti dheer uu ku dhex qaato ama uu halkaasi ku dhex cunteeyo ama uu kuraas dhex taalo oo muddo dheer uu ku raaxaysto. Hadda waxaa yaala doomo yaryar oo sidaan oo kale ah oo ay aasaaseen ganacsato Soomaaliyeed kuwaasoo laftigooda dadaal badan muujiyay laakiin ma qalmaan doomo dalxiis. Laakiin waa doomo lagu talagalay qofku inuu dhowr daqiiqo ilaa iyo 20 daqiiqo kale uu badda kusoo dhex maro. Xeebta Lido waxay u baahan tahay doon dalxiis oo weyn oo qofku ku dhex cunteyn karo oo kuraastiisa u taalo oo sidoo kale uu ku fadhiisan karo. Sababtoo ah doontan hadda markaa saaranta waxay noqonaysaa inaad darbi qabsatid oo isceshay oo aad haba meel ku dhigtid. Haddii kale doontan waaba ka dhacaysa oo biyaha ayaad ku dhacaysaa. Sidaa daraadeed fursadan ganacsi waxaan rabnaa ganacsatada Soomaaliyeed ka faa'iideystaan xeebtan ay keenaan doomo waaweyn oo dalxiis oo qofku one day maalin dhan, isbuuc dhan, habeen dhan, maalin dhan uu badda ku dhex jiri karo. Halkaasna uu kusoo raaxaysan karo. Sababtoo ah dad badan ayaa jecel inay gudaha badda ay waqti kusoo qaataan laakiin uma helaan fursad. Doontan waqtiga ugu badan ayaa saarnaa kartaa waa 1 saac ilaa iyo 30 daqiiqo. Wixii ka badanna suurtagal ma ahan. Meesha ay ku gey kartaana ma aha meel fog sababtoo ah waa doomo lagu talagalay in meelaha yaryar ee dhow ay tagaan. Dadaal badan ayay muujiyeen ganacsatada hirgeliyay. Sidaad u jeedaan aan laftigeygu meesha ugu dheereed ayaan kireystay doontan balse aan usoo arko inta ay gaari karto laakiin halkaas ayay gaartay. Sidaad u jeedaanba kaamilada aad ka arkaysaan halkaasna ma dhaafi karto. Marka waxaa loo baahan yahay ganacsatada Soomaaliyeed inay fursadan ka faa'iideystaan oo ay keenaan doomaha dalxiiska ee xeebaha adduunka looga dalxiisto ee waaweyn kuraasta leh ee raaxada ah dadka ganacsatada ah dadka hantida haysta qofkii rabo inuu xeebta ku dhex dalxiiso oo runtii saacado badan kusoo qaadan karo. Sidoo kale doomahaas waxaa laga yaabaa habeenkii inay xeebta dhexdeeda ay waqti ku qaataan oo mararka qaarkood xaflado lagu qabto. Adduunka sida ogna waxaa ka jira doomo sidoo kale aroosyo lagu dhex dhigo. Marka tan waxay noqon kartaa fursad dheemana oo ka bannaan xeebta Lido ee magaalada Muqdisho. Fariintan waxaa u direynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee inta badanba markii cafe show meel laga furo mid kale ka ag furo jiray. Ganacsatada Soomaaliyeed ee markii dukaan yar aad meel ka furatay ayaguna dukaankii kale kaas ag furayay. Ganacsatada Soomaaliyeed ee markii fursad yar oo ganacsi adiga aad fikrad la timaado aad abuurtid haddana kaas ag furanayay. Waxaan leenahay ka faa'iideysta fursadan ganacsi ee ka bannaan xeebta Lido keena runtii doomaha dalxiiska oo dadku ay waqti badan ku qaadan karaan. Lido waa mid ka mid ah goobaha ugu dadka badan haddana maanta ma leh hal doon oo dalxiis oo weyn oo qofku uu waqti ku dhex qaadan karo oo kuraasta la. Sidoo kale doonta waxaa laga rabaa inay Muqdisho ka baxdo oo ilaa iyo Warshiiq ay socon karto oo qofka ay soo tusi karto waqti dheer ayadoo tartiib u soconaysa. Waxaa kaloo laga yaabaa in magaalada Muqdisho ka baxdo oo sidoo kale deegaanka Jasiiro oo kale ay tagi karto ayadoo qofka cuntadiisa iyo wixiisa dhammaan meesha ku dhex wato. Doontaas waxay noqonaysaa doon dad kooxa ay kireystaan, dhalinyaradu ay kireystaan, groups ay kireystaan sidoo kalena qeybaha kale ee dadka oo dhan qofka u baahan uu kireysto. Doontaas waxaa laga yaabaa inay noqoto doon laga dhex sameeyo aroosyada lagu dhex sameeyo. Sidaa ognahay waxaa jira doomo badan oo aroosyada lagu dhex sameeyo oo aroosyo lagu dhex dhigo sidoo kalena fursado badan looga faa'iideysto. Shalay waxay nagu noqotay wax qaar caadi ah in doon dadkii aan la socday ay waayaan ay ku dalxiisaan. Sababtoo ah doontan hadda aniga aan saarnaa qof waayeelna ma raaci karo haweenkii caruurtana halis ay ku tahayba. Sababtoo aniga kaliya hadda raacay sababtoo u raacan waxay inaan soo fiiriyo inta ay gaari karto. Waxaa la dhihi karaa waa la amaanayaa sababtoo ah isku day fiican oo ballaaran ayay sameeyeen ganacsatada Soomaaliyeed ee doomahan hirgeliyay. Waxaana la dhihi karaa waa xaddi aad u fiican marka la fiirsho. Laakiin qofkii rabo inuu saacado badan uu badda ku dalxiiso wuxuu u baahan yahay doon leh kuraas sidoo kalena qofka inuu badda biyaha ku dhacayo aan u diyaarsanayn sidoo kalena agabkiisa oo dhameystiran leh cunteyntii leh wax kasta leh. Marka ganacsatada Soomaaliyeed fursadan waa inay bannaan tahay
waxaa jira doomo badan oo hadda ka hor laisku dayay in xeebta Lido ee magaalada Muqdisho la keeno, laakiin arrintaas way suurtageli weyday. Sida ganacsatada qaarkoodna ay noo sheegeen, waxaa jirtay hal doon oo hadda ka hor la keenay xeebta Lido ee magaalada Muqdisho, taasna markii ugu dambeysay qofkii iska lahaa lacag fiican ayuu ka sameeyey. Sidaa daraadeed wuxuu awoodi waayay inuu doomihii uu sii kordhiyo ama dadka uu sii wado. Hal xabuu keenay, halkii xaba waxaa dhacday in boqolaal qof hal mar ay soo wada dalbadeen oo yidhi anaga raacayna oo soo booking gareystaan. Marka qiimihii ayuu wuxuu ka dhigay qiimo aan caadi ahayn ama aan macquul ahayn. Suurtagal ma ahan doon in la yiraahdo half day $500 ayaad ku kireysaneysaan dad ama 3 qof ama 4 qof. Sidaa daraadeed dadkii dhamaa way ka kala carareen, waana sababtii ugu weyneyd oo ganacsadahaasi uu ganacsigiisa u baaba'ay sida dadka ay noo sheegeen. Marka fursadan waa mid aan horey loo arkin. Waxaa loo baahan yahay doono dalxiis kuwa aroosyada lagu dhex dhiga karo, doon runtii lamaanayaasha markay is aroosayaan xataa sawir ay kusoo dhex geli karaan, doon dadka raba inay dalxiisaan oo badda ay ku dalxiisaan galabtii oo kale ay qaadan karaan, oo sidoo kale waqti dheer ay badda kusoo jiri karaan. Runtii doon qofka markii uu fuulo uu ku dareemayo raaxo iyo inuu runtii xeebta Lido ee magaalada Muqdisho uu joogo oo uu ku raaxaysanayo. Sidaan wana ognahay adduunka waxaa ka jira doomo badan oo dalxiis. Xeebaha adduunka hadaad tagto waxaa helaysaa doon kuraas leh, wax kasta leh, jawi fiican aad ku qaadatid. Fursadan waxaan rajeyneynaa ganacsatada Soomaaliyeed inaysan seegin, mana seegi doonto. Bilaha soo socda waxaan rabnaa xeebta Lido ee magaalada Muqdisho oo yaalaan doomo dalxiis oo dadku runtii waqti dheer ay ku qaadan karaan oo lacag yar ah. Aan kugu sii daray waxaaba jirtaba in dhulkii dad badan ay iska dhaafeen oo hadda xeebta 90 kilomitir dad ay socdaan iyagoo maaragtay hawlo kale kusoo qabsanaya. Ma rabo inaan sheege, iyada laftigoodu waa fursad fiican oo bannaan. Hadda doomahan ayay raacaan, laakiin doomahan anytime ama waqti kasta ayay biyo soo geli karaan. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan rajeynaa fursadan ganacsi ee doomaha ka bannaan xeebta Lido ee Muqdisho inaad ka faa'iideysan doontaan. Waana mahadsantihiin.